afar wiil oo saaxiibo ah waxa ay ku noolaayeen magaaladaas wax ehel ah kuma aysan lahayn oo mid walba oo wiilashaas ka mid ah waxa uu ahaa keligiis oo magaalada kuma lahayn qaraabo waalid walaal ehel midna kuma aysan lahayn afartoodii ayaa heshiiyey waxa ayna ku heshiiyeen in ay saaxiibo isku kalsoon noqdaan isweheshadaan isqaraabaystaan islana noolaadaan oo nin kasta midka kale u caawiyo sidaas ayay afartoodii wiil ay ku heshiiyeen laakiin dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaanba wiilasha waxaa u dhaxeeyay farqi wiil wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan xalaal miirad ah geesina ah labana waxay ahaayeen kuwa qaa'imiin ah in ay wax qiyamaan maahane aan joogi karin midna waxa uu ahaa daacadna wuu ahaa khiyaanadana waa u janjeeray oo labada dhinacba baynabayn ayuu ahaa midka ma wanaagsani waxaa la odhan jiray maaw maalin ayay heshiiyeen isku imaadeen labadii qaa'in ayaa waxa ay soo dhejiyeen niman yahow waad u jeediin nolosha aan ku noolnahay wax ehel ahna kuma lihin magaaladan aniga waxay ila tahay waxaan ku shaqaysan karnaa in aan dadka xadno duurka aan galno wixii aan dhici karnaba aan dhacno laakiin wiilkii wanaagsanaa ee maaw ayaa arrintii ku diiday oo waxa uu yidhaahday maya ma dhici karto in aan dadka khiyaano waxaan heli karnaa in aan shaqaysanno xooggeenna cunno daacadnimo aan ku noolaano wixii yar ee na soo galo ayaa nagu filan midkii dhexaadka ahaa waxa uu yidhaahday ani maaw waa ku raacsanahay laakiin labadii kale ayaa arrinkii diiday oo waxa ay yidhaahdeen waa u jeediin in muddo ah ayaan daacadnimo ku nooleen waxna waan ka faa'iidi weynay isla haddana wiilkii kale ee dhexaadka waa ku raacay oo wuxuu yidhi waa runtood maaw waa u jeedaa dadkan ganacsatada ah hanti ayay haystaan shaqo nama siiyaan nama caawiyaan nimankaa ra'yigoodu waa ila quman yahay haddii loo batay xaggii khiyaanada ma waxa uu yidhaahday anigu idinama noolaan karo oo khiyaano kuma jiri karo idinka hawshiina wata aniga daacad ayaan ahaanayaa si daacad ah ayaan u shaqaysanayaa arrinkiinana kuma jiro waana uu ka tegey saddexdoodii ayaa sheekaystay oo labadii qaa'imiin waxay dhaheen ninkan hadda waa uu naga tegey laakiin waxaa laga yaabaa daacadnimadiisa haddii aan waxadno inuu dhaho saaxiibaday ayaa ku tashanayay in ay waxadaan arrintii haddii ay isla rogrogeenna waxa ay ku heshiiyeen in asaga la dilo si uusan sirtooda u bixin waayahay ayay ku heshiiyeen in la dilo maaw kadib waa ay soo baxeen mid ayaa waxa uu yidhaahday sidee baan ku dili karnaa waxa uu yidhaahday niyo waxaa jira tuug kale oo magaalahan ku nool ninkaas haddaan booskiisa ku bedelanno qorshihii ninkan aan ku dili lahaynna oo noo keeno ninkii ayay u waceen waxa ay ku yidhaahdeen niyahow ninkaas saaxiibkaana ah waana dhibay in uu tuuganimo nala qaato waa uu diiday waa nin daacad ah waxaan ka baqaynaa in uu na fashilo sidee baan ugu taqlusi karnaa asagana waxa uu yidhahday ninkaas waa la dilayaa laakiin dhimashadiisa wax raad ah anaga naguma ay yeelan doonto qorshe ayaan u degayaa baadiye foog ayaan ka tuurayaa duurkaas ayuunu ku dhimanayaa midho samaysanna waan siinayaa idinka guriga ku soo celiyaa kii daacadda ahaa dhexdhexaadka ahaa ayay u direen oo waxay ku yidhaahdeen noo soo raadiyaa markii uu soo helay ayay u wada imaadeen waxa ay ku yidhaahdeen nin yahow khiyaanadii waa iska daynay taladaada ayaan qaadannay haddii aan fakarnay adiga ayaa nala quman waxaan doonaynaa in aad guriga ku soo noqodid oon si daacad ah aan ku shaqaysanno maa oo aad iyo aad u faraxsan ayaa gurigii dib ugu soo noqday saaxiibadiisna la midoobay habeenkaas farxad ayuu ku seexday subaxdii ayaa albaabkii nin soo garaacay gow waxay yidhaahdeen waa kuma wuxuu yidhaahday waa hebel maxaa doonaysay
waxaan doonayay nin caddaan ah oo magaciisa saddexda xaraf ay ka kooban tahay oo daacad ah, waxaana la iigu sheegay gurigan inuu ku nool yahay. oo maxaad ka rabtaa? boqor hebel ayaa ii soo diray. ninkaas waa nin wanaagsan. in muddo ah ayaan raadinayay magaaladan. markii aan soo galayna waxaan helay inuu gurigan nin astaamahaas leh ku nool yahay. magaciisu ninkaas miin ayuu ka bilowdaa, waana 3 xaraf. mawna arrintaas waa uu maqlayaa, waana uu dhegaysanayaa. kadib waxa uu yidhaahday soo daaya. gudihii ayuu ninkii soo galay. mar alla markuu maw arkay, dhegihii ayuu qabsaday, waana uu jilbajabsaday asagoo weynaynayo. allow maxaan ku raadinayay? waa asaga naftiisii, waa maaw. maaw ayaa waxa uu yidhaahday, maxaan ahay? maxaana rabti? war adiga ma og tahay intaasoo sano ayaa lagu raadinayay? waxaa jirto magaalo hebel. magaaladaas buur ayaa ku taallo. intaasoo qasnadood oo dahab ah ayaa ku keedsan. magacaaga iyo astaamahaas nin leh unbaa furi kara ayaa la yidhaahday markii faalkii iyo sixirkii la sameeyey. magaaladaasiiti magaceedii haddii aad raadisid waad helaysaa. magacayuu u sheegay. magacaasna maba ahaynba magac nolol looga soo noqonayo. aad iyo aad ayuu maa u yaabay. saaxiibadiisna waa ay dhegaysanayeen. kadib waxa uu yidhaahday, niyo faras xoog le qaado. midhahan 100 mirood ayaan ku siinayaa. 100kaas markaa cuntid 100 libaax awooddoodii ayaad yeelanaysaa. buurtaas markaad tagtid adiga aad istaagtidba way furmaysaa. dahabkaas adigana waxaad ka helaysaa. dadka nool iyo boqortooyadaasna nacfi ayay ka heli doonaan. dadkaasna adiga ayaa badbaadinayo. maaw arrintii haddii uu dhegaystay waa uu rumaystay. waxa uuna go'aansaday meeshii inuu aado. kadib waxa ay u raadiyeen faras xoog badan oo horay duurka u galo. wayna u saamiyeen sahay wanaagsan. sidaas ayuuna maaw ku ambabaxay. magaalada uu aaday magac unbuu maqlay maahane meel ay ka xigtana maba uusan aqoonin. markii uu ambabaxay ayaa raggii soo haray mid ka mid wuxuu yidhaahday, warniyahow qiyaamada badanida sheekadii aa sheegaysay aniga ayaaba run mooday oo waxaas dhahay amaad raadisaa. kiina waxa uu yidhaahday, midhaha aan siiyey waa ay sumaysan yihiin. haddii cuni waayna meeshaas ouba gaaraba buurahaas bahlo ayaa cunayo, dibna uma uu soo noqonayo. maa waxa uu sii socday 7 maalin. maalinkii 8aad ayaa waxa asagoo lugaynayo maraya meel bannaan ah waxa uu arkay siiga badan oo isqabsatay. haddii uu fiirshay mise waa farda aad iyo aad u tiro badan. intii uu sii socdayna habeenkii god uu ku hoydo ayuu raadin jiray. markaan ma uusan helin god uu galo iyo buuro. dhulku waa bannaan, geedo badan ma leheen. aad iyo aad ayuu u yaabay. asaga oo naxsan ayuu meelaha fiirshay, mise wuxuu arkay geedo yaryar oo qaar ay aad iyo aad u waaweyn yihiin. yacni geedo aad u fara badan dur ahayn, laakiin dhowr geed oo isku dheggan oo hood ahaan u samaysan keen. geedihii ayuu dhex galay. geed weyn ayuuna kor kaga fuulay. caleemihiisiina wuu ku dhuntay. raggii waxay soo aadeen dhankii geedihii. markii geedka imaadeen waxa ay la kulmeen faras xoog badan oo sahay wado oo meesha taagan. haddii ay fiiriyeen miro ayaa ku wadaa waa 100 mirood. waraaq ayaa saaran. waxaa ku qoran mir walka alsa oo aad cuntid waxaad yeelanaysaa awoodda libaaxa ayaa yeelanaysaa. kii ciidankii watay ayaa waxa uu yidhaahday, war niman yahow waa sahay ilaahay noo soo diray. 100 nin ayaan nahay. midhahaana waa 100 mirood. waxaana la leeyahay mir kasta qofkii cuno awooddii waxa uu yeelanayaa libaaxa ayuu yeelanayaa. raggii wuxuu ku yidhaahday, qof walbana mirtiisa ha cuno. maantana halkan ayaan ku nasanaynaa. mirihii ayay wada cuneen. saaxiib mawna waxa uu saarnaa geedkii. intii uu dhuumanayay habeen ayaa la gaaray. raggii meeshii ayay seexdeen. wax meesha ka baxayana maba lahan.
aad iyo aad ayuu u yaabanaa. habeenkii oo dhan waa uu soo jeeday asaga oo sharqan dhegaysanayo. habeenkii dhirir badana wuxuuba ka dheeraadayba dhowr bilood ayuu ka dheeraaday. waxa uu geedkii saarnaaday oo murugaysnaa oo sharqan iska ilaaliyo. waagii ayaa baryay, raggiina meeshii ayay jiifaan, wax dhaqaaqayo ma lahan. asagana sharqan ayuu dhegaysanayay, wuxuu isdhahayay goormay raggan baxayaan. meeshiisaas ayuu saarnaa in muddo ah. markii dambe ayuu waxa uu arkay faras fardihii ka mid ahay ragga wateen ayaa nin kor imaatay. jug ayay siisay, ninkiina maba kicin. maaw oo shakiisan ayaa tartiib u soo degay. haddii uu soo degay waxa uu arkay raggii meesha wada yaallo oo mid kasta afka xumbo ka keenay, sankana ka dhiigayo oo wada meed ah. waxa uu fiirshay mirihiisii, mise waa la cunay. waxa uu dareemay mirihii ay cuneen in uu mirihiisii ahaayeen ayna sumaysnaayeen. qorshahana lagu soo dirayna ay ahayd qorshe loo degay ee asaga la rabay in lagu dilo. aad iyo aad ayuu u murugooday. waxa uu fiirshay alaabtii ay wadeen tuugadii, oo wuxuu arkay dahab aad iyo aad u tiro badan iyo jawhar. waxa uu ku fekeray dahabkan ma qaadataa ama dadkii iska lahaa ayaad u celisaa. waxa uu arkay magacyo ku qoran. waxa uu ogaaday hantidan in uu nin boqor ah, boqor hebel la yidhaahdo, oo iska lahaa. kadib hantidii ayuu celiyey asaga oo ku raadinayay boqorkii iska lahaa. qasrigii boqorkii oo la jabsaday, hantidiina taalay la qaatay, meel loo doonan la kasi laayahay ayaa ninkan waxa uu keenay waxaanu farda ah iyo sahaydii ay wadeen asaga oo wado. boqorkii ayuu waxa uu u sheekeeyey qisadiisii oo aad iyo aad u dhammaystiran, iyo saaxiibadiis waxa ay ku sameeyeen iyo meeshii ay u direen. boqorkii ayaa waxa ku yidhaahday, nin yahow, waxaad tahay nin daacad ah. daacadnimadaas ayaa ku badbaaday. meeshaas haddaad tegi lahayd, qof tegay weligiis kama uusan soo noqon. ka waran haddii aad aniga ila joogtid, waxaad tahay nin geesi leh, xoog leh, aamin ah, aadna wasiir ii noqotid. maaw waa uu ka yeelay in uu wasiir u noqdo lana shaqeeyo. hanti badan ayaa loo ballan qaaday mushaar ahaan in loo siinayo. halkaas ayuu iska degay. farxad weyn ayaa la sameeyey, dabaaldeg. dadkii oo dhan oo la wargelinayo in maaw loo doortay wasiirka cusub. wuxuu ahaa nin habeen iyo maalin wareego, dadka dhibka ka badbaadiyo, dadka kibirka badanna soo qabto una nasteexeeyo, dadka baahanna caawiyo. wanaaggiisii iyo samaantiisii ayaa dadkii oo dhan wada gaadhay. waxaa wasiirka ka agdhowaa niman madax ah. waxay cuqdad iyo xaasidnimo u qaadeen maaw, waxayna go'aansadeen in ay dilaan qaabkii uu ku dhiman lahaa. waxaa jirtay magaalada agteeda meel kayn ah. kayntaas waxaa ku noolaa libaax xoog badan. qof alla qofkii meeshaas galana waa uu dili jiray, qof awoodayna ma lahayn. waxay u tageen boqorkii. boqorow, soo ma ogid maaw nin xoog leh inuu yahay. xooggiisaas iyo awooddiisa iyo aqligiisa ayaan rabnaa in aan ka faa'iidaysanno. waxaana doonaynaa in uu soo dilo libaaxaas haddii uu awood leeyahay. mawna boqorkiina waxa u yeeray maaw. waxa uu yidhaahday, waad u jeedaa tolkay iyo dadkii madaxda ahaa waxa ay kaa codsadeen in aad soo muujisid geesinimadaada, aadna dishid libaaxaas. ma awoodaa siday sheegayaan adiga oo hubaysneen ulah u shaaday wata in aad libaaxaas soo dishid. maaw aad iyo aad ayuu u naxay. godkiisii ayaa biyo u soo galay. libaaxaas wax badan ayuu qisadiisa iyo sheekadiisa maqlayay. mana ahaan libaax shakhsi ama 10 shakhsiba lagu aadi karo, laakiin waa lagu qasbay in uu libaaxaas weeraro, dadkana dhibaatadiisa uu ka soo reebo. maaw waxa uu anbabaxay doorkii. farastiisii ayuu watay. markii hoodkii uu galay ayaa uu farastii ka degay, baa agtiisa waxaa ka soo baxay libaaxii. farastii way carartay. maaw iyo waxaa isku soo haray libaaxii.
maw asagoo ilaahay baryayo ayuu waxa uu fuulay geed u dhowaa. libaaxiina wuxuu isku dayay in uu ka daba boodo uu soo dego. maw ushii uu watay ayaa ka soo dhacday, waxayna isku tiqraartay libaaxii afkiisa, ayadoo qaybna qabsatay dabxanaga hoose qaybna qaybta kore qabsatay. markasta uu qayliyay libaaxii ama oo usha la xarbiyaba waa ay sii mudaysay ilaa ay dhiig badan ka keentay. cararay magaaladana uu ku dhex fakaday. dadkii magaaladii dhan markay arkeen libaaxii oo soo hajuumayo oo afka kala hayo, qof walba waxa uu xirtay albaabkiisii ayuu hoosta ka xirtay, asaga oo ka baqayo inuu albaabka u soo jebiyo. laakiin libaaxii intii uu rafanayay marba meel ku dhacayay, ushii labada dalqo ayay sii mutay. halkaas ayuu ku tiro dhigay uuna ku dhintay. maw oo ka soo daba baxay markuu arrinta arkay ayaa dadkii waxa ay la yaabeen sida uu maw ushiisii uu ku dilay libaaxii. boqorkiina waxa uu la dhacay wanaaggiisii iyo geesinimadiisii, waxa uuna go'aansaday in uu ku daro gabadhiisii. maw waxaa lagu daray gabadhii boqorka. muddo yar kadibna waxaa geeriyooday boqorkii, waxaana boqortooyadii la wareegay maw. maalin asaga oo xaaskiisii la sheekaysanayo ayuu waxa uu sheekeeyey sheekadiisii oo dhammaystiran. waxa ay tirahdeen, niyahow maxaad u raadin weysay saaxiibada waxa ay ku nool yihiin iyo wixii gadaashaa qabsaday. maw aad iyo aad ayuu ra'yigaas ula dhacay. safar weyn ayuu ku soo baxay asagoo hanti badan wado. waxa uu imaaday magaaladii ay ku noolaayeen, waxa ayna ka raadiyeen saaxiibadiis, laakiin wax sheegaba waa uu waayey oo in muddo ah sanooyin badan ayuu maqnaa. markii uu ka quustay in uu helo ayuu waxa ay xaaskiisii ku tiraaday, maadaamay nimankaas tuugo inay noqdaan rabeen, maan weydiino saldhigyada iyo meelaha dambi baarayaasha, waxaa laga yaabaa akhbaartooda in ay halkaas ay taallo. waa arrin sax ayuu yidhaahday. waxa uuna aaday meeshii dambi baaristii. waxa uu naga sheekeeyey qisadii. kadib dadkii xirnaa ayaa la tusay kuma ay jiraan. rag badan oo horey loo laayay ayaa la tusay, laakiin nasiib xumo maw waxa uu ka arkay saaxiibadiisii oo gacanta booliska ciidanka ku dhintay ayagoo tuugo ah. waxa uu yidhaahday, saaxiibaday wadda xun oo qaatum xumo ah oo dhibaato u dambayso ayaga ayaa doortay. haddii ay nolol caadi ay dooran lahaayeen, sacaan farxad ay ku dhammaysan lahaayeen. halkaas ayay qisadeena ay ku eg tahay. maxaad ka fahmaysaa dhegaystow? waxaa noloshaada dambe adiga ayaa go'aan ka qaadan karo. haddii aad waddo wanaagsan u xaartidna waddo wanaagsan ayay ku soo dhammaanaysaa. haddii aad xumaan u bilowdidna laba beri kadib xumaantii adiga ayay kula gadoomaysaa oo dhibaato ayaa kula kulmaysaa. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.